ceelka ay ka yimaadaan biyaha zamzamku ayaa ah ceelka ugu caansan dunida markii laga soo tago ahmiyadda diineed ee uu u leeyahay dadka muslimiinta. ceelkan ayaa ah mid cajiib ah, lehna waxyaabo la yaab leh oo ay ka mid yihiin inuu caan ku yahay inaysan dhammaan ama xataa isdhimin biyihiisu, wuxuuna sidaas ahaa wax ku dhow 4,000 oo sano. xadiisyo dhowr ah oo laga wariyey nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa rasuulku biyaha zamzamka ah ku tilmaamay inay yihiin biyaha ugu khayrka badan dunida, yihiinna biyo barakaysan oo dawo u ah xanuunada. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegaynaa maxay tahay qisada ka dambaysa ceelbiyoodka zamzamka, maxayse tahay sababta ay biyihiisu dhammaan la' yihiin ama xataa u yaraan waayeen, annagoo og in si maalinla ah xujayda soo booqota guriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay cabbaan qaataanna 10 litir oo biyahaas ka mid ah. iyo sidoo kale maxay kaga duwan yihiin biyahani biyayaasha kale ee yaala dunida. soo dhowaada jaalaya, intaynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin inaad leeg saarto, sidoo kalena aad muuqaalkan la wadaagto asxaabtaada. haddaad nugu cusub tahayna nugu soo bir oo rukumo barteenan. mahad sanidiin. markii uu nebi Ibraahim calayhi salaam uu xaaskiisa Haajara iyo wiilkiisa Ismaaciil uu u raray magaalada Makka, nebi Ibraahim calayhi salaam ayaa amarka Rabbi reerkiisa ku dejiyey meel u dhow meesha ay maanta ku taal Kacbada barakaysan. wakhtigaas Kacbadu umaysan dhisnayn qaabka ay maanta u dhisan tahay. Makkana waxay ahayd meel saxare lama degaan ah, hal qof oo dhaqaaqana uusan joogin. Ibraahim calayhi salaam oo fulinaya amarka Rabbi ayaa go'aansaday inuu reerkiisii uga tago toggaas lama degaanka ah oo aan xataa lahayn dhir iyo baad toona, wuxuuna cunno ahaan uga tegey dhowr xabbo oo timir ah iyo xoogaa biyo ah. Haajara ayaa markii ay aragtay nebi Ibraahim calayhi salaam inuu sagootinayo rabana inuu meesha uga tago, ayay ku tiri, ma Rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa ku amray in aad sidaas samayso? markaasuu nebi Ibraahim calayhi salaam ugu jawaabay, haa, oo Rabbi ayaa amray inaan halkan idin dejiyo, idinkagana tago. markaasay ku tiri, hadday sidaa tahay Rabbina ma dayici doono. nebi Ibraahim calayhi salaam ayaa markaas ka dhaqaaqay xaaskiisii iyo wiilkiisii. markii uu cabbaar ka sii socday, araggoodiina uu ka qarsoomay, ayuu intuu nebi Ibraahim calayhi salaam istaagay ayuu gacmaha kor u taagay sida uu Rabbi subxaanahu wa tacaala uu noogu sheegay qur-aanka. nebi Ibraahim ayaa yidhi, Rabbiyo waxaan ehelkaygii ama duriyaddaydii aan dejiyey tog aan lahayn wax beero ah, toggaasoo ku ag yaala gurigaaga xurmaysan. waxaana halkaas u dejiyey Rabbiyo inay ogaan ama ay toosiyaan salaadda. ee Rabbiyo ka yeel quluubta dadka mid u soo hoobata xaggooda, kuna arsaaq miro. waa intaas oo ay ka mahadnaqaane. mufasiriinta ayaa tilmaama in Rabbi subxaanahu wa tacaala uu ducadii nebi Ibraahim u aqbalay. maanta magaalada Makka waa magaalo qof kasta oo muslim ah u hamuun qabo inuu mar uun tago, waxaana halkaa ka baxa noocyo kala duwan oo miro ah. markii ay muddo yar ka soo wareegtay tegitaankii nebi Ibraahim calayhi salaam, biyihii iyo timirtii yareed ee ay haysatay Haajara ayaa ka dhammaaday. Haajara ayaana dareentay gaajo. nebi Ismaaciil oo markaas aad u yaraa ayaa bilaabay inuu gaajo darteed la ooyo. Haajara ayaana isku dayday inay dhinacyada ka raadiso dad ama wuxuun baad iyo biyo ah, waxaana markaas ka agdhoweyd buurta Safa. waxayna u baxday buurtaas iyadoo eegaysa bal inay aragto dad ama wax gaajada iyo haraadka ka bi'iya. markii ay waxba arki weyday ayay ka soo degtay, iyadoo haddana u baxday buurta Marwa oo iyaduna ka agdhoweyd. sidaas ayayna 7 jeer intay orodo labada buurood marba mid u fuulaysay, ilaa markii dambe ay quusatay, dibna ay ugu soo noqotay meeshii uu jiifay nebi Ismaaciil calayhi salaam. muddo kadib ayay maqashay hadal ka imaanaya meel ka fog goobtii ay joogtay. markaasay tiri, iyadoo la hadlaysa qofka hadlaya, nacaawi haddii aad khayr leedahay. codka ay maqashay Haajara ayaana ahaa codkii Jibriil calayhi salaam. wuxuuna markaas Jibriil calayhi salaam jeexay meeshii ka horaysay meeshii uu jiifay Ismaaciil calayhi salaam, waxaana dhulkii ka soo baxay biyo aad u tiro badan, taasoo ay aad ula fajacday Haajara. waxayna bilowday in ay biyihii ku wareejiso ciid si aysan uga dhammaan inta ay buuxsanayso weelashii ay haysatay. markii ay biyaha ciidda ku wareejinaysay ayay ku celcelinaysay sam sam. halkaas ayaana ah meesha uu ka yimid magaca ceelkani. kadib dhacdadaas, dad reer guuraa ah ayaa la soo degay Haajara iyo wiilkeedii nebi Ismaaciil calayhi salaam. ceelka Samsam ayaana ahaa meesha ay biyaha ka helaan dadkii halkaas ku noolaa, wuxuuna sannado badan ahaa ceel waraabiya reer Makka iyo dadkii ka agdhowaa. wakhti ka mid ah wakhtiyadii jaahiliga waxaa la tilmaamaa in ciid fara badani ay qarisay ceelkaas. dadkii wakhtigaa noolaa ayaa garan waayey
meeshii uu ceelkaasi ku yaalay wuxuuna qarsoonaa sannado badan ilaa markii dambe nebiga sallallahu calayhi wasallam awowgii cabdimudallib uu ku riyooday shakhsi u tilmaamaya meesha uu ku yaalo ceelkaas shakhsigan oo ka dalbaday cabdilmudallib inuu dib u furo ceelkaas markii uu cabdilmudallib hurdada ka soo kacay wuxuu aaday meeshii ceelka loogu tilmaamay isagoo bilaabay inuu qodo meeshii ilaa uu markii dambe helay ceelkii sidaas ayaynu ku rumooday riyadii uu cabdilmudallib ku riyooday wixii wakhtigaas ka dambeeyey quraysh ayaa la wareegtay waraabinta dadkii xujayda ahaa ee imanayay kacbada wakhtiyadaas dadku waxay u soo xajin jireen maka oo jasiiradda carabta waxaa weli ka sii jiray diintii nebi ibraahim calayhi assalaam inkastoo ay diintaas soo dhexgeliyeen shirki iyo caabudidda asnaamta quraysh ayaana ceelka maamulkiisa haysay ilaa laga soo gaaray khilaafadii cabbaasiyiinta wakhtigaas qoyska la dhaho reer aala zubayr ayaa khilaafadu u igmatay in ay la wareegaan maamulka ceelkaas mas-uulna ka noqdaan waraabinta xujaydii soo booqanaysay beydka rabbi wixii wakhtigaas ka dambeeyey ilaa maanta reer aala zubayr ayaa iska soo dhexlayey gacan ku haynta ceelka samsamka ceelkan ayaa ku yaala meel 21 mitir oo keliya u jirta kacbada barakaysan afka ceelka ayaa ku yaal hoosta hoose meesha ay xujaydu ku dawaafaan ee u dhow kacbada ceelkan ayaa hoos u qodan ilaa 30 mitir waxaana halkii ilbiriqsi ceelkan ku soo dhaca biyo gaaraya 11 ilaa 18 litir biyaha ceelkan ayaan nusqaamin si kastoo biyaha looga saaro sidoo kale biyihiisu ma gaaraan heer inta ay buuxsamaan ay biyihiisu daataan markii laga soo tago mucjisada iyo awoodda rabbi subxaanahu wa tacaala culimmada geolojiga ayaa isdhimid la'aanta biyaha ceelkan u sababeeya nooca uu ceelkani uu yahay culimmada ayaa markii ay qeexayaan noocyada ay ceelashu u qaybsamaan waxay ku qeexaan 2 qaybood qaybta koowaad ayaa ah ceelbiyoodka aan biyihiisu is-cusboonaysiin noocan ayaa ah biyo kooban oo ku jira dhulka hoostiisa aysan ka agdhoweyn togog harooyin ama xataa ilo ay ka soo galaan biyaha roobka markii biyaha ceelkan la soo saaro lana adeegsado waxay noqonayaan kuwo yaraada ilaa uu ceelkaasi ka qalalo halka nooca labaad ay yihiin ceelasha loo yaqaan ceelasha ay biyahoodu is-cusboonaysiiyaan kuwaas oo ah biyo ku jira dhulka hoostooda laakiin si joogto ah u hela biyo kale oo dheeraad ah ha ka helaan biyahaas togo ka agdhow ama biyaha roobka qaybtan labaad ayaysan biyahoodu dhammaan si kasta oo loo isticmaalo nooca ceelka samsamka ayaana ah qaybta labaad ceelkan ayaa ku tiirsan biyaha roobka ku da'a buuraha maka kuwaasoo soo mara togaga ka agdhow ceelkaas gaar ahaan toga nebi ibraahim calayhi assalaam halkaas oo ah meesha uu ku yaalo ceelkan biyaha roobka ee soo mara togagan ayaa markii uu dhulku laqo ku aruura gunta hoose ee dhulka ku hareeraysan ceelkan waxaana halkaa ku yaala dhagxaan loo yaqaan garanit kuwaasoo biyaha u beddela kuwa nadiif ah oo la cabbi karo dabcan biyahan aan leenahay dhulka hoostiisa ayay ku aruurayaan ma ahan dhacdo habeen iyo maalin ku suurtagelaysa ee waa biyo kumanaan sano ku aruurayey dhulka hoostiisa muddooyinkii ugu dambeeyey khubarrada ayaa baaritaanno kala duwan ku sameeyey ceelka iyo biyaha zamzamka waxayna sawiro ka soo qaadeen gudaha ceelka biyaha zamzamka ayaa aad uga duwan biyayaasha kale ee yaala dunida markii laga soo tago inay yihiin biyo barakaysan sida uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam noo sheegay waxyaabaha kale ay uga duwan yihiin waxaa ka mid ah haydrojiinta ku jirta biyaha zamzamka ah haydrojiinta ku jirta ayaa gaaraysa 8 taasoo biyaha u samaynaysa dhadhan gooni ah halka biyayaasha kale ee yaala dunida ay haydrojiintoodu badanaa gaarto 7.2 ugu dambayntii shaki kuma jiro in ceelka zamzamka iyo sida uu ku qodmayba ay tahay mucjiso rabbaani ah biyihiisuna ay yihiin kuwa rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay kuwa barakaysan dawana ah haddana intan aan idinla wadaagnay ayaa ah fasiraadda bini'aadamku ay ka bixiyeen ceelkan iyagoo kaashanaya aqoontooda gaaban waxaana hubaal ah inay jiraan waxyaabo badan oo arlada korkeeda ah oo ka qarsoon bini'aadamka uuna og yahay rabbi subxaanahu wa tacaala